soo dhawaada hooyadan waxay ordaysaa si ay wiilkeeda u soo badbaadiso xoogaa ka hor isagoo meeshan banooni ku dheelaya banooniga dhinaca wadada ka aaday markii uu banooniga wadada ka soo qabsan maagay gaarigana intuu bariig ka qabtaa ninkii gaariga wada wuxuu ku dhahaa xaggee u socotaa isla markaasna hooyadiisa u imaanayso wadada markii ay ka soo qabato waxay ku dhehaysaa meeqa jeer ku dhahay wadada banooni ha ku ciyaari isla markiina hooyadu waxay arkaysaa in nin kale oo mooto wata oo mootadiisa gurigooda ku soo horbaakintay canuga yar ninkii wuxuu ku dhahaa mooto kala kacsana wadataa isna wuxuu dhahaa waa mahadsantahay anigii hooyaday halkaas soo degnay magaciigina Frank waay haddii aad rabtid mootadan in aad tijaabisana waa ii imaa kartaa laakiin hooyadiisa waxay ku dhehaysaa ninkaas wuxuu ku sheegaa been waaye ee ord gurigaaga aad wiilkeedu markii oo baxay intee soo baxday ninkii uu imaanaysaa kadib waxay ku dhehaysaa cunugayga waa inaad ka fogaataa adiga waxaad samaysay ma aqaano marka ma raba inaad cunugayga iga barto waxaad samaysay ord meeshan isaga tag hamiinkii iyadoo gurigeeda isaga dhex shalaysanayso waxay maqlaysaa mooto qaylinayso markii ay daaqadeeda ka fiiriso waxay arkaysaa inay ninkii u imaadeen laba nin oo kale oo saaxiibadiisa iyadoo xanaaqsanay intee banaanka u soo baxday nimankii waxay ku dhehaysaa maxaad samaynaysiin waxa qaylinayeen maxay ahaayeen midkaana waxa uu sheegay inay kaliya sheekaysanayaan oo aysan wax kale jirin kadib waxay ku dhehaysaa dariska dhan way idinka seexan la'yihiin ugu dambeyn ninkan kale wuxuu ku dhahaa qaladkeena waaye waa aamusi doonahay orod hadda iska bax subaxdii intay timaado wiilkeeda iskuulka u dhigtay waxay arkaysaa labada naagood oo iyada xamanayo oo ku dhahayo iyadii ninkeeda way kala tageen iyagana waxay arkayaan inay gadaashooda taagneed markii ay xamanayeen kadib intay u imaadaanay waxay ku dhahayaan waa ka xunahay wax kugu dhacay waa maqalnay annagana arrintaas kugu dhacday oo keliya ayaa ka sheekaysanayna ee wax kale ma jiraan isla markii waxay maqashay mooto qaylinayso markii ay fiirisana waxay ogaanaysaa in uu yahay ninkii deriskeeda ahay oo mootada haystay intay dhinaciisa soo aaday waxay ku dhehaysaa meeshan waa meel ammaan ah oo carruurta lagu talagalay maxaa ka samaynaya waxaan kugula tali lahay inaad meeshan isaga tagto ka hor intaana booliska ku wicin isaguna wuxuu ku dhahaa maamulaha meeshan aan kulan la leeyahay internetkan waxaan ka arkay inay macallin u baahan yihiin anigana waa soo dalbaday intay ku qosashay waxay ku dhehaysaa adiga miyaa macallin noqonaya maxaa rabtaa inaad carruurta barto sida iskuulka looga baxsado oo xabsiga loo aadaa wuxuu ku dhahaa waad saxan tahay aniga macallin ma u eeki laakiin tayadeeda waa tusi doonaa kuwan haddii aqbalaan waxay weydiinaysaa marka aniga meeshan waxaa ii dhigtay wiilkayga ka waran haddii aan maamulaha u tago kadib aan u sheego qorshaaga iyo inaad darooga ka ganacsatid kadib isaga oo aan u jawaabinay meeshii isaga tegay cunugeedii yarayna hore u sii wadanay maalintii labaad waatana iyadoo la hadlayso maamulaha iskuulka oo wiilkeedu dhigto isla waqtigaas ay taleefanka ku hadleedana wiilkeedii yaraa bannaanka oo banooni ku ciyaaraya oo daaqadii ka fiirinaysay maamulihii iskuulka waxay ku dhehaysaa macquul maahan qof qaabkaas u eg in carruurteena lasoo hor istaajiyo oo weliba wax sii baro isagiina waa kanahay gurigiisa hortiisa oo mootadiisa ku samaysanaya isla markaasna wuxuu daawanayay wiilkii yaraayo banooni ciyaaraya markii ay taleefankeeda dhammaysato waxay arkaysaa wiilkeedii yaraayo banoonigii bannaanka uga baxay isaguna uu isku dayayay inuu soo qabsado intay soo baxday wiilkeedii ka daba imaatay kadib waxay ku dhahday meeqa jeer ku dhahay banooniga bannaanka ha u tuureen isaguna isagoo raba inuu banoonigii qabsado ayaa gaari meesha soo maray ku dhici gaara laakiin waxaa ka badbaadinaa ninkii deriskeeda ahaa midkii deriska ahay wuxuu is arkaa isagoo isbitaal joogo gabadhiina ay kor joogto wuxuu weydiinaa halkee joognaa